markii uu bilaabay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID, shahaadaysiinta xildhibaanada cusub ee la doortay ayaa waxa uu maanta gaaray kooramkii labada aqal. Xildhibaanada qaatay shahaadada uu bixinaya guddiga FID ayaa gaaraya 177 xildhibaan oo ka kooban 139 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 38 senatar oo aqalka sare ah. Guddiga FID ayaa maalintii shanaad magaalada Muqdisho ka wada diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxa wali ku adkeysanaya guddiga fulinta jadwalkii dhaarinta xildhibaanada, isagoo oo fariin culus u diray xildhibaanada dhiman ee uu ka dalbaday inay soo xaadiraan xarunta FID si looga faa'iideysto muddada kooban ee ka hartay shahaado bixinta. Xildhibaanada qaatay shahaadada ayaa aad u sii kordhaya tan iyo markii guddigu uu bilaabay inay diiwaangeliyaan xildhibaanada soo baxay, walow Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay ka cagajiidayaan shaqada socota. Si kastaba, arrintan ayaa dhalisay khilaaf xoog leh oo haatan ka taagan dhamaystirka doorashada Soomaaliya oo qaadatay muddo ka badan hal sano iyo dheeraad ah kadib dib u dhacyo ku yimid doorashada.